Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacayga waxaa la dhahaa Sabriin. Qisadan waxay igu dhacday anigoo yiis ah. Hadda anigu waxaan ka shaqeeyaa office. Waxaan ahay gabar maalqabeen ah oo lacag leh. Hadda waxaan jiraa 25 sano. Markaan yaraa familkaygu way ciyaarsiin jireen oo si fiican ay ii ciyaarsiin jireen, way kolkoolin jireen. Maalintii dambe hooyaday isbitaal ayay gashay oo ilmo yar ayay soo dhashay hooyaday. Markii dambe hooyaday aabahay cunuga yariiska ay ku faraxsanaayeen oo way kolkoolinayeen cunuga yariiska. Markii dambe cunuga yariiska maalin maalmaha ka mid ah soo baxay ayaa gaajo xun igu dhigneed. Hooyaday aabahay cunuga ay ciyaarsiinayeen. Ani markaas waxaas lahaa cunuga ayay ka jecel yihiin. Markii dambe ayaa inta soo baxay ayaan ku iraaday hooyo gaajo ayaa hayso. Markii dambe hooyaday igu tiraahday cunto oo soo sameyso ama ku sameynay suuq hal saac kadib. Markii dambe hooyaday way baxday oo cuntada ay inoo soo sameysay. Aabahay ayaa markii dambe book akhrisanay. Aniga markaas yariiska cunuga yariiska ayaa u yimid sida uu ciyaarsiiyo. Cunugii wuu ooyay, waa yaabay. Markii dambe aabahay ayaa soo orday oo wuxuu igu dhahay cunuga yariiska ma taaban kartid, bar dambena gacantaada ma saari kartid. Aniga markaas waxaan ogaaday inay cunuga iga jecel yihiin. Markii dambe qolkayga ayaan iska soo galay anoo cunto cunin oo gaajaysan. Sariirteeda ayaan iska seexday. Waxaan maqlay cunuga yariiska oo la ciyaarsiinay hooyaday aabahay ciyaarsiinayaan. Anigana waxaas waa iska dhiga tiray oo waa iska seexday. Aniga arintaa xanuun badan ay igu haysay. Aniga markii dambe waa weynaaday. Iskuulka imtixaankiisa ayaa ku baasnay. Anagii saaxiibeen natiijadayna ayaa fiirsanay. Markii dambe iskuulka waa ka soo baxay. Waxaa imaaday guriga. Hooyaday ayaan ku yiri hooyo imtixaanka maanta waa ku baasay. Hooyaday waxaa mooday inaysan maqlin mobile ay ku jirtay. Markii dambe ay tiraahday waa ku maqlaa gabadheed maxaa tiraahday. Markaas ku dhahay hooyo imtixaanka ayaa maanta ku baasay. Hooyaday way dhoola cadeys. Anigana waa farxay. Markaas ay tiraahday hadaa ku baastay maxaa iga galay gabadheedii. Adiga ay farxad ku tahay orska bashaal maanta. Intaa markay igu tiraahday anigoo niyadeyda ayaa jabtay. Markii dambe hooyaday way iga tagtay ayadoo qosleysa. Anigana waa ooyay. Aniga markaas taas ayay igu dhici jirtay. Dhabarka ayaa la iga taabtay. Waan soo jeestay. Waxaan arkay habartii guriga ka shaqeynaysay si naxariis badan ay ii soo fiirisay. Hab ay siisay ayadana. Wallaahi qisadan markasta ay igu dhici jirtay oo saas ayaa u ooyi jiray maalin kasta. Aniga hadaa runta inoo sheego dhanka waxbarashada waa ku fiicnaa oo markasta imtixaanka waxaa keeni jiray natiijo sare. Hooyaday maalin kasta waxay akhris mobile ayay daawataa. Aabahayna maalin kasta journal ayuu akhristaa. Aniga walaalkay dhanka waxbarashadiisa asaga wuu ku xun yahay oo si fiican wax uma barto. Teedkan aniga walaalkay wuu neceb yahay oo adduunka anuu igu neceb yahay. Markaa fadhiga soo fadhiisto si xun ayuu ila dhaqmaa. Markasta aan walaalkay wax u sheego wuu iskii dhaafiyaa. Anagoo maalin miiska fadhina ayaan waxaan aabahay ku iraaday aaba gaari ayaa rabaa aan ku aado iskuulka. Aabahay ayaa jawaab ka sugayay. Markii dambe aabahay wuxuu dhahay waa kuu gadayaa. Markii dambe waxaa soo bood walaalkay wuxuu dhahay aaba uma gadi kartid. Aniga ayaa u baahan inaan gaari iskuul ku aado. Hay'adaha u gadin. Aabahay ayaa dhahay haya adiga waa kuu gadayaa ayada uma gadayo. Markaas ayaa aniga naxay oo waan niyad jabay. Oo aad ayaa u naxay oo walaalkayna halkaas ayuu ku qoslay asaga wuu qoslay. Markii dambe maalintii dambe waa iska soo baxay anigoo lug ku soconayay. Iskuulka markaa tagay ayaa haddana la iga soo daayay anoo meel iska fadhiistay waan iska ooyay. Waxaa ii imaaday qof. Asxaabi qaybteena kuwaad intaas nagu eg tahay. Qaybteena labaad la socda. Waa mahadsantihiin. Subscribe like noo saara.